barnaamijkeena cusub ee Animal Study qaybtiisii koowaad. Muuqaalkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa xayawaanka lagu magac daray cheetah. Cheetah waa mid ka mid ah bisadaha dunida ugu caansan iyo xayawaanka ugu dheereeya ee dhulka mara, halka uu kaalinta afraad kaga jiro xayawaanada ugu dheereeya caalamka. Orodkiisa waxaa lagu cabiray ugu badnaan 114 kiiloomitir oo u dhiganta 75 mayl, waxayna si joogto ah u gaarayaan xawaare dhan 80 ilaa 100 kiiloomitir saacadiiba intay ugaarsanayaan ugaarsiga. Ku dhowaad dhammaan cheetah ku haray duurka waxay ku nool yihiin dhul-daaqsimeedka iyo kaymaha Afrika. Cheetah waa uu ka duwan yahay xayawaanka la yiraahdo haramcadka. Cheetah wuxuu ka mid yahay xayawaanada hilib cunka ah, afka qalaadna lagu dhaho carnivores. Maqaarka cheetah waxaa ku daboolan dhibco yaryar oo madow oo salka ka ah huruud cira leh. Dhanka wejiga wuxuu ku leeyahay xariiq madow oo ka soo baxda geeska gudaha ee il kasta ilaa geeska afkiisa, waxaana la moodaa raad ilin. Cheetah wuxuu leeyahay jir dheer oo caata ah oo cabirkiisu yahay 1.2 mitir ama 4 feet. Wuxuu kaloo leeyahay seen dheer oo cabirkeedu yahay 65 ilaa 85 sentimitir oo u dhiganta 2 ilaa 3 feet. Cabirka garbihiisu waa 75 sentimitir. Miisaankiisu wuxuu u dhexeeyaa 34 ilaa 54 kilogram. Cheetah wuxuu ugaarsadaa xilliga maalintii, gaar ahaan subaxa iyo galabkii. 900kii bilowgii qarnigii 20aad 100,000 oo cheetah ayaa laga helay deegaano ku yaal qaaradda Afrika oo dhan, iyo laga soo bilaabo bariga dhexe, jasiiradda Carabta ilaa India. Laakiin wuxuu iskugu soo aruuray qaybo ka mid ah Asia iyo qaaradda Afrika. 9,000 ilaa 12,000 ayaa lagu qiyaasaa inta ku nool qaaradda Afrika, gaar ahaan wadamada Namibia, Botswana, Zimbabwe, Tanzania iyo Kenya, halka kuwa aan aad u badnayn laga helayo wadamo ay ku jiraan Soomaaliya, Ethiopia, Mali, Niger, Cameroon, Chad iyo Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika.